kusoo dhawaada muuqaal cusub aa idinkaga soo diyaariyey mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan. walaalayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii aan caawa rabnay inaan uga hadalno guulaha isdabayaalka ah ee walaalaheena Soomaaliyeed gaarayaan ee ka samaynayaan waddankeenii. runtii xaqiiqatan guula aad loogu farxa ah oo ruux kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed meel kasta uu adduunka kaga nool yahay ama uu ka joogo uu ku farxaya, runtii dhiirigelin iyo himo fiicana siinaysa. halka anoo ka duulaya waxaad ogtihiin dhowr barnaamijoo hore inaan ka sameeyey dhallinyarteenna qiimaha badan ee wiilasha iyo gabdhaha ka kooban, horumarka waddankeenna iyo waxtarka ay ka soo gudbinayaan. runtii xaqiiqatan aniga keligay ma ahee qof kasta oo waddankeenna jecel, oo dalkeenna jecel, oo horumarka jecel, oo dhallinyaradu inay guul gaadho jecel, runtii ayaa ku farxaya. runtiina waxa uu noqonayaa ruuxaasi mid mar walba la nool barnaamijyada ka soo kordhaya oo dhegaysta. macnaa la nool marka leeyahay waxa weeye mid mar walba dhegaysta ayuu noqonayaa barnaamijyada iyo horumarka ay dhallinyaradeennu ka soo gudbinayso waddankeennii hooyo. qofka Soomaaliga ah ama Jabuuti ha joogo, ama ha joogo Ethiopia, ama Kenya ha joogo, ama waddan kale ha jooga qof kasta oo Soomaali ah, hooyada uu ka soo jeedo ama hooyada uu u tiirsadaa iyadoo dowladuhu iskhilaafsan yihiin lagu kala nool yahay, haddana waa dalka weyn aad garanaysaan weye. walaalayaal waxaan xalay ka soo hadlay oo 2 kiliib ka soo sameeyey horumarka ay sameeyeen 3 sane ugu dambeysay walaalaheenna Somali Magazine. runtii xaqiiqatanna iyo horumarka ay hadda kusii tallaabsanayaan ee maalinba maalinka ka dambaysa ay gaarayaan. caawa waxaan rabaa horumarada ka jira dalkeennii hooyo ay dhallinyaradu ayagu ku fikireen inay ummadda u soo bandhigaan mid ka mid a inaan idiin soo gudbiyo. talow middaasi waa kuma? waad isweydiinaysaan baa laga yaabaa, laakiin waan idiin sheegayaayo waxa weeyaan waa Ismahaan Daahir. gabadha la yidhaahdo Ismahaan Daahir, khayr allaha siiyee, gabadheenna walaasheenna ah, waxay maalmahan soo gudbisay fiideo aad u qurux badan oo aad u qiimo badan oo dhallinyarada qurba joogta ah ama aan weligoodba dalkii arag, sida hadda aniga idinla hadlaya weligay dalka ma arag. dhallinyaro kale oo waxaa jirta aniga iga yaryar oo ku dhalatay iyaguna qurbaha ku dhashay oo weligood dalkoodii arag. runtii markay daawadaan, anigayga ninka weyn a markaan daawaday quruxda iyo qiimaha xeebaha ka mid ah waddankeennii oo runtii dadku xataa ayna aad u aqoonin iyay walaashan inoo soo bandhigtay. waa daawanaysaan, bal fiiriya xeebta quruxdeeda ay gabadha walaashan inoo soo dhigtay xilli qoraxdii soo baxday ama meel yar oo dalxiis loo tagoon dadkuba aad u aqoonin weye. dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkayga Ismahaan Daahir, kusoo dhawaada muuqaal cusub aa idinkaga soo diyaariyey mid ka mid ah xeebaha ugu. runtii xaqiiqatan waa meel aad u qurux badan, waa wax dayasho mudan weeye in la helo dhallinyaradeenii Soomaaliyeed oo soo bandhigaya meelo qurqurux badan oo dalkeennii hooye ka mid ah. runtii waxay arrintaasi dhiiri gelinaysaa dhallinta yaryarka ah ee qurbaha ku soo kortay ama kuwa dhalatay ama ku soo kortay ku caqliyeysatay inay jeclaadaan beeraha qurquruxda badan, xeebaha iyo meelaha lagu dalxiiso ayay in badan soo bandhigaan. tiifiyo waaweyn bay u sameeyaan ooy dowladdu dhaqaalo ku bixiso, oo waxaa loo sameeyaa xayawaanaadkii beero waaweyn, markaasaa dadkii lacag. tiifiyo waaweyn bay u sameeyaan ooy dowladdu dhaqaalo ku bixiso, oo waxaa loo sameeyaa xayawaanaadkii beero waaweyn, markaasaa dadkii lacag lagaga qaadayaa dalxiisayaasha ahaa. bajad bayna dowladdu ka heshaa oo waxay ka mid tahay waxyaabaha dalxiisayaasha laga qaado bajadyada ugu qiimaha badan caalamka ee lagu xisaabtamo ee dowladdu dhaqaalaha ka hesho ayay ka mid tahay. ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ayay ka mid tahay. waxyaabaha qurquruxda badan sida badaha, sida buuraha, sida xayawaanaadka, sida meelaha maaragtay dalxiisyaha loo tago oo dhan. marka walaasheen muuqaalka ay soo duubtay runtii xaqiiqatan marar badan waxaa isdhihi kartaa show ma aha waddankii laga yaaba qofka aan weligii aragba inuu uun maqla uun dhib baa ka jira, mushkiladaa ka taagan, xaalada xunxun baa ka taagan, waxbaa lagu dilay. haddii waxyaabaha negatifeka bas aan lasoo gudbinin ee lasoo gudbiyo waxyaabaha fiicanna lasoo gudbiyo, runtii xaqiiqatan ilmaheenna waxay ogaanayaan waddan qiimo badan oo keliya u baahan
system u hagaaga inay ka yimaadeen. haddaba gabadha walaasheen ah waxyaabaha quruxda badan ay soo gudbinayso mar walba bal aan daawanno oo nafta aan ugu raaxayno. waad ila daawateen waxyaabaha i soo jiitay waxaa ka mid a runtii killiga ama abriiqa dadka qaarbasay u yaqaanaan killi jalamad iyo abriiq intaba way u yaqaanaan. runtii ay qoryaha xaabada ku karinaysay dabkii aad u baxay oo quruxda badan yahay waxyaabaha i soo jiitay ayay ka mid ahayd. kusoo dhawaada muuqaal cusub aa idinkaga soo diyaariyey mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan. runtii waxyaabaha kale ee quruxda badan ee soo jiitay waxay ahayd dhallinyarada shaaha cabaysa ee cumaamadaha qurquruxda badan iyo dharka lebiska quruxda badan ee lebiska muslimiinta ah ama soomaaliyeed xidhan ee meesha fadhiya ayna inaba ka qasnayna runtii ayagana way isoo jiiteen runtii oo aad baan qalbiga ugu farxay. wuxuuna noqon doonaa saan rajaynaya fideogani fideoyada ugu badan ee dadku ay ku raaxaystaan qalbiga markay daalaan markay isla hadal ay dareemaan hadday daawadaan fideoyada ugu saamaynta badan 2022 ayuu noqon doonaa fideogan runtii xaqiiqatan. waxaan ka codsanayaa dhallinyarada soomaaliyeed fideogaas inay horumarka uu samaynayo iyo wanaagga uu ka tarjumayo inay aad u fiiriyaan oo isha u saaraan fideogana si fiican loogu sheergarayo walaasheen. runtii innaga ayaa ka faa'iidaynaa waddankeenna jacaylkiisa quruxdiisa inaynu leenahay waddan dalxiis lagu samayn karo waddan laga samayn karo fideoyo qurqurux badan. waxaa kaloon isagana ka hadli doonaa runtii qays oo isaguna ka soo gudbiya waddankeenna hooyo isaguna ka soo gudbiya waxyaaba aad u qurqurux badan ka soo gudbiya oo badda oo kale mar uu soo duubayey oo uu ka soo sameeyey fideoye runtii xaqiiqatan dubay isaguna waa suu u sheegayba dubay iyo lama kala garanaynin meesha uu ka soo duubayay ee waddankeenna hooyo ah. runtii haddayna ka qurux badnayn xeebteenna iyo dhulkeenna una ka qurux badnayn kullaba kamayna qurux badnayn imaaraat iyo meelo lamid ah. marka ila daawo runtii walaasheen waxay soo gudbisay fideo kooban oo 8 daqiiqa ilaa 9 daqiiqa inta u dhaxaysa ah laakiin xambaarsan rajagelin xambaarsan niyadis iyo maskaxda inuu kuu dhiso oo maskaxdu ku qabowdo markaad daawato quruxda ilaan indhaha waxyaabaha indhuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha raaxaysta qofka bini aadanka meelaha ka raaxaysta indhaha ka mid ah oo meel qurux badan indhuhu markay arkaan raaxay dareemaan. waxaa ka mid ah jidhka kale oo dhan baa ka mid ah. runtii wuxuu xambaarsan yahay qalbi dejin iyo farxad iyo rajagelin. runtiina gabadha walaashaya markaan daawaday waan u duceeyey oo ilaahay waxaan uga baryey inuu gabadha riyooyinkeeda wanaagsan inuu ilaahay u suurageliyo una dhammaystiro ayaan ilaahay uga baryey. sababta annagana rajagelin iyo niyad qiimo badan bay noo samaysay. allaha barakeeyo wiilasha la duubaya ee quruxda badan bal daawada wiilasha waa wiilal aad u qurux badan runtii ayna inaba ka qasnayn aadan moodinba inay joogaan waddankii dhibaatada 30 sano ama 30 sano ay saamaysay inay joogaanba aadan moodin oyna ka qasnayn oo dalkooda aad u jecel. hadalladay adeegsanayeen waxaa ka mid ahaa waa waddan adigu aad leedahoon cidi kaa xigin oodan qofna uga amar qaadanaynin. waa hadal aad ii qiira geliyey bal ila dhegayso oo marti kama tihid dalka iyo dalagaba. runtii meeliba meesha kale ka daran meel kasta ood ka fiiriso fideoga aad buu ku qancinayaa. waxay ka mid tahay ismahaan daahir waxay ka mid tahay gabdhaha farakutiriska ah ee runtii muuqaallo aad u wata dareen iyo soo jiidasho iyo daljacayl soo gudbiya ayay ka mid tahay. waxaa ka mid ah gabdhaha nasre abtidoon. waxaa kaloo ka mid ah ajmal gabadha la yidhaahdo dabcan waxaa laga yaabaa magac kale inay leedahay laakiin channelkeeda waxaa ku qoran ajmal. gabadhaana in badan insha allah inaan soo qaatoon ayadana ka hadla ayaan jeclahay. halkaas ayaan kusoo joojinayaa caawa kiliibkii yaraa aan ka sameeyey ama aan ku falanqaynaya ama reactionka aan kaga bixinayay gabadheenna walaasheenna qiimaha badan quruxda badan aadda u wanaagsan na gelisay niyad wanaag na gelisay rajo wanaag na gelisay ee aadka u wanaagsan ee fariinta quruxda badan walaaladooda ama walaaladeeda qurbaha jooga ama aan dalkii hooye arag ama aan kusoo caqliyeysanin ama aanba ku dhalaninba hadal xun iyo war xunna looga soo gudbiyo rajagelin badan u samaysay. shukran baan ku leeyahay walaal waana kugu dhiirigelinaynaa fideogaas iyo kuwo badan oo ka dambeeyaba waan kaa rajaynaynaa inaad noo soo dhigto annagana aan reaction ku samayno. reactionku wuxuu sameeyaa ummadda ayuu usii iftiimiyaa waxan wanaagiisa. mararka qaarkood dad baa xumaan u adeegsada laakiin
shayga fiican markii reaction lagu sameeyo qiimihiisii uu lahaa ayaa sii ziyaadaya. waxaa suuroobaysa in qof waliba meeshii uu yaallay uu usoo raadsado oo markaa kabacdi gabadha walaashana ay dantii iyo rajaday ka lahayd ay ka gaadho, midda kale ummadda faa'iida ay ka hesho. walaal waan kuu mahad celinayaa runtii videogayga haddaad daawatana waxaan kaa rajaynayaa inaad iga aqbasho niyadda wanaagsan een kuu haya runtii xaqiiqatan iyo farxadda aan ka helay videoga aad noo soo samaysay. in badanna waan ku xidhnaanayaa insha allah janaalkaaga. shukran.